haddii aad jika ku jirtid oo aad bannaan ku baxdid jika ayaa kaasoo carfayso haddii aad qol caraf badan ku jirtid oo uunsi ka shidanne banaanka hadda u baxdid uunsi baa kaasoo carfayo iyo caraftii haba meesha aad joogtid muuqeedii carafteeda ayaa yeelanaysaa haddii aad saaxiibo wanaagsan leedahay qof wanaagsan baa u muuqanaysaa haddii aad asxaab xun leedahane qof xun baa u muuqanaysaa haba maskaxdaada wixii markaasi ka buuxa ama ay ka fikirayso qaabkeeda ayaad noqonaysaa haddii fikirku uu kugu badan yahay dhanka xun aad u fikiraysid mar walba waxa aad ku hadlaysaa fikir xun laakiin haddii uu fikirkaagu wanaagsan yahay oo mar walba ka fikirayso wax horumar leh mar walba waxa aad ka fikiraysaa wax markaa naftaada dan u ah asxaab iyo saaxiib baa jira haddii asxaab badan ay meel iskugu timaado qof xun wax ku jira lama wada dhihi karo asxaabtaasi 10 qof ama 5 qof ama 3 qof oo meesha joogto dhammaantood waa wada wanaagsan yihiin lama oran karo mid uun baa xun haddaba mararka qaar waxaa dhacaysa haddii aad 3 tihiin mid baa idinku jira kaasoo doonaya labadiinaba inuu gacanta idinku hayo kuu la joogaba markaasi uu ka diyaarinayo weji haddii adigu aad wanaagsan tahay kan kalena oo xoogaa aad adag yahay kan kaloo saaxiib ka dhiganaya si adigu aad u noqotid qof wada loo soo maro adigu marka aragtay labadooda oo isla safanaya ama isla socdo waxa laga yaabaa naftaada inaad tiraahdo adiga qaldan muhiimadu ma aha waxa ay ku dhaqmayaan si kastoo ay 2 iyo 3 iyo 4 u yihiin hamoodin inay saxan yihiin mararka qaar waxaa dhacaysa dadku inay dulmi isku raacaan mar walba dib iskugu laabo niyadaada fiiri waxaan aad dareemayso waxa ka gubanaysa miyaa mise wax caadi ah haddii aad gubanayna caadi iskala soco laakiin mar haddaad dareemayso xoogaa culays iyo fikir iyo in waxaan dhacaya ay yihiin wax adigu aad ka joogi la'aday aad ka fikiraysid markaas waa markaa go'aanka ka qaadan lahayd ee ka go'i lahayd waayo asxaabtinimadaasi sun bay noqotay haddaad doonaysa inaad saaxiibtinimada ku guulaysatin weligaa waxaa noqotaa wax bixiye wax qaataha noqon soomaalidana waxa ay tiraahdaa af wax cunay xisho si kastoo wax u qaadatid waxaa dhacaysa wax walba markaasi kugu yimaada ama lagu weydiiyo ama ka jawaab lagu yiraahdo inaad xeerin bilowdid sababtoo ah qof wax cunay baa tahay laakiin inta badan aad waxba qaadanay disciplinkaaga aad hagaajisid oo aad dhihi kartid uma baahni tusaale ahaan maanta haddii la yiraahdo cabitaan baan kuu shubay cabitaankana aad isla daqiiqada kadib cabitaanka u sii baahanaysaa laakiin qofka cabitaanka ku siiyay niyada wuxuu ku hayaa inuu wax ku siiyo wax walba uu kaaga soo baahdana uu heli karo adigana waxa laga yaabaa wixii inay isla markaa calooshaada tageen welina aad u sii baahan tahay waxaad barataa inaad waxyaabaha qaar ma dhihi kartid si aysan u noqon wada lagu soo maro dad waxa jira wax ku siinaya waxayna wax ku siinayaan si u kontrooli lahayn naftaada si markay ay kugu soo baahdaan ay wax walba kaaga heli karaan waxaas waxa laga yaabaa xataa inay dib kugu tahay markay ay kaaga soo baahanayaan laakiin niyada waxay ku hayaan inay wax ku siiyeen mar walba wax ku siinayaan hadaf baa ka dambeeyo haddii aad asxaab leedahay mar walba ha u fikirin inaad wanaag u samaysid kan kale si uu kuu dhaho qofkaas wuu wanaagsan yahay mar walba waa wanaag samaynaysid waxaad adigu ku faraxsantaa ha ahaato oo wax niyadaada ka laakiin wanaagga haddaad samaysid noloshaada mar walba waxay ahaanaysaa qabyo waxaana laga yaabaa qofka wanaag u samaynaysid oo aad ugu samaynaysid inaad u muuqato qof wanaagsan inuu mar walba kugu amaano dadka kale adiguna aad u muuqato qof liito waayo mar walba niyadaadii baad sii liidaysaa wanaag wax u samaynaysaa dan aad adigu gooni ku leedahay wanaag haddaad samaynaysid halkaana ha ka yimaado ogtahay asxaabta hadday isla joogaan inaysan isku fikir noqon karin mid walba fikir gooni ayuu wataa mid baa laga yaabaa habeenkii oo dhan inuu fikirayo si uu qorshe u soo samaysan lahaa aad ku wada joogtaan waxaa laga yaabaa adiga xataa shakhsiyadaada inaad fikir kale haysatid oo aad isleedahay fikirkaagu wuu wanaagsan yahay usoo bandhig waxaana dhici doonta mid baa ka soo horjeesan doona bilaa sababtana waxay tahay uu diiday fikirkaaga inuu idin dareensiyo inuu meesha ku jiro ka dhex muuqdo waxaana laga yaabaa inay xanaaqada istiraado qofkaani muxuu fikirkaaga uga soo horjeesanayaa mar walba aad fikir diidmaa la kulantid fikirkooda ma xumee shakhsiyadooda ayaa xun waxaad ku dadaashaa shakhsiyadooda inaad wanaajisid haddaadan wanaaji karin inaad go'aan ka qaadatid السلام عليكم